السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كلنتي wanaagsan meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada warbixinadii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal waxaan eegi doonaa laacibkii toddobaadkan ugu fiicnaa Champions League oo la magacaabay Kylian Mbappe laacibka garabka uga ciyaara kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan dalka Faransa oo abaalmarinta lagu qaraacay laacibka ugu qaraacay ee ka hormaray laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe ayaan saaxiibayaal ni falaqan doonaa waxaan kaloo saaxiibayaal eegi doonaa James Rodriguez oo si lama filaan ah ula midoobay laacibka lagu magacaabo Marcelo oo waqti badan iyo waayo qurux badan ay ku soo qaateen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee ka dhisan magaalada Madrid ee dalka Spain marka saaxiibayaal waxaan kaloo eegi doonaa laacibkay hore ee Barcelona iyo Juventus Artur Mela oo naadiga Liverpool ay soo qaadatay suuqan xeega la soo dhaafay ay ku dhowdahay inay kasasho maadaama laacibkan qaab ciyaareedkiisa soo dhaliya booniga oo san ku qancin tababare Klopp ayaa saaxiibayaal eegi doonaa haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenan fadlan subscribe noo saar waana ku mahadsan tahay saaxiib qadkaaga saaxiibayaal waxaa la soo saaray laacibka ugu fiicnaa Champions League isbuucii la soo dhaafay isbuucan oo ahaa isbuuc aad u xamaasad badan maadaama labadii habeen ee la soo dhaafay ay ahaayeen laba habeen oo la daawaday kooxo waaweyn weerar iyo weerar celis booniyaal fiican oo habeysana la daawaday ayaan saaxiibayaal waxaa jira in laba laacib aad u sareysa uu ka mid yahay da'yarka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee lagu magacaabo Kylian Mbappe marka Kylian Mbappe oo weerarkiisa ahaa weerar hay ah oo nin aad u dadaalay maadaama kulankii la soo dhaafay uu gool fiican dhaliyay goolal badan oo soo caawiyay xagaagan ayaa saaxiibay qiimeynta ka soo muuqday laakiin waxaa qiimeynta ku qaraacay laacibka lagu magacaabo Kevin De Bruyne oo khadka dhexe iyo kubad sameeyo u ah kooxda lagu magacaabo Manchester City marka saaxiibayaal abaalmarintan oo mar walba la bixiyo isbuuc walba laacibka ugu fiican ama laacibka soo bandhigay booniga cajiibka ah ayay qiimeeyaan qaaradda Yurub FA-ga qaaradda Yurub laakiin waxa moodaysaa in Kylian Mbappe uu ahaa laacibka mar walba u qalma in uu guuleysto laacibka ugu fiican isbuucan Champions League oo asagoo gool leeyay laakiin waxaa caawin fiican sameeyay oo booni soo laabasho leh ka sameeyay kooxda Manchester City laacibka lagu magacaabo Kevin De Bruyne saas ayuu ku qaatay laacibkii ugu fiicnaa ama laacibkii isbuucan ugu wanaagsanaa ee Champions League marka ninkii Kylian Mbappe ahaa ciidda ayaa afka loo gashay saaxiibayaal marka saaxiibayaal kale waxaan eegaynaa James Rodriguez oo si lama filaan ah ula midoobay Marcelo ma garanaysan laacibkii daafaca bidix ka ciyaari jiray Real Madrid waqtiga badanna kula soo guuleysay koob badan nadiga lagu magacaabo Real Madrid laacibkan lagu magacaabo James Rodriguez waxa uu ahaa laacib aad u fiican waxa uu soo aanbaxay 2014 markuu qabti World Cup qaaday asagoo dhaliyay dalkiisa marka saaxiibayaal sanadkan waxa moodaysaa laacibka lagu magacaabo James Rodriguez waayihii dambe ama sanadihii la soo dhaafay waxa uu ahaa laacib waji ku bada ama laacib ku gabanaya fartiisa marka laacibkan oo ahaa laacib khabiir ah laacib wax waqti badan soo ciyaaray booniyaal fiican soo dhashay waxa uu wajahayaan asagii saaxiibkiisa Marcelo inay iska tagaan dhammaan qaaradda Yurub oo qaaradda Yurub ay ka aadaan naadiyaasha ugu hooseeya ee qaaradda Yurub Olympico oo ka dhisan dalka Greece ay isku tageen labadan laacib ee lagu magacaabo Marcelo iyo laacibka lagu magacaabo James Rodriguez marka adduun waxa halkaaba laacibyada mar walba lagu riyoon jiray laacibyada mar walba lagu kharo jiray ayaa waxay waayeen kooxo u dheelaan waxay waayeen kooxo u ciyaaraan maadaama da'da ay ka daba timin ciyaarahoodii iyo boonigoodiina oo saddex weyn ku yimid marka waxaad moodaysaa in aysan ku jirin laacibadii wax badan lagu soo qarweeyay ama wax badan koonkan ama adduunka ama dhammaan qaaradda Yurub booniga soo maamulayay oo ah gaalo weyn ahaa sanadkan waxay wajahayaan caqabado weyn oo ka mid yahay laacibka Cristiano Ronaldo oo ay kooxda dalbata maadaama uu rabay inuu iska baxo nadiga lagu magacaabo Manchester United saaxiibayaal waxaan eegi doonaa Artur Mela oo maalintii ugu dambeysay suuqa uu xirmi lahaa ee la soo wareegtay nadiga lagu magacaabo Liverpool ee ku dhashay garoonka Anfield marka saaxiibayaal soo tibinaya in hadeertaan ay Liverpool u dhowdahay inay ka sasho macnaha Artur Mela heshiiskiisa amahda ay tiraado warniyo dib looga laabo ayaa la filayaa maadaama tababare Klopp in uu ku qancin booniga Artur Mela oo ah booniga gaab ah Liverpool
Booni Gagaba lagama yaqaano booniga garbaha liga marka Artur Mela oo isku haysta inuu yahay laacib khabiir ah ayaa Booni Gagaba la soo galay kooxda lagu magacaabo Liverpool marka Liverpool jamaahirteeda iyo tababarheedu kuma qancin Artur Mela marka saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabeynaa hay wanaagsan saaxiibayaal